بدنا laga hadlay tirakoobyo iyo warbixino aad iyo aad looga soo shaqeeyay ayaana loo sheegay xog yari iyo xogaal yari nama haydo aan rabaa inaan sheego dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan saddex mushkiladood oo waaweyn ayaa ummadan ama qarankan ka qaran ahaan yaa haysato adduunyada dhan ay mar walba nasu'aashaan ugu tiraahdaa annaga dhaxdeena isku dhahnaa haddana burburkii kadib 32 sano sii mareynaa jawaabo badan laga bixiyay saddexdaas su'aalood laakiin haddana ma dhameystirno oo intii la rabay ma gaarsiisno oo jawaabtu dawaati xal waafi ah keenta wali ma hayno dadka Soomaalida qaranka Soomaaliyeed ee Soomaaliya waxa la yiraahdaa isma xukumi karaan 32 sano ay isxukumi laayeen isu tari laayeen waxa la yiraahdaa xukunka daba socoto dabcan isma amni geli karaan ammaan isma sii karaan kaalmo caalami ah ayay u baahdeen si ay ammaan u kala helaan ama ay u jiraan ama xukuumadoodu ay ama dawladoodu ay ammaan u hesho kan saddexaadna waxa la isma qoodi karaan dal barwaaqa ayagoo ku nool saddexdu kalama maarmaan waa isku wada xidhan yihiin laakiin haddana maanta isma qoodin karaantii yaan taaganahay ayadoo la leeyahay dalkaani dal qani ah waaye waxaa dhulka hoostiisa ku jira iyo waxaan la arkayn marka laga yimaado inta dhulka dushiisa saaran ayaa nagu filan oo bar iyo beer iyo bad intaba leh wasiir beyle hadalkiisii hadda ugu dambeeyay ka mid ahay dunida abaaruhu meelo badan ay ka dhacaan waana lagu dhibtoodaa laakiin meel abaartu ay macluul inta gaarto dadka ay u dhamaadaan Soomaaliya ayaa مثالka ah oo la sheega abaaraha maanta la sheegayahay dhul badan oo gobolkan geeska Afrika kamid ah ayaa nala wadaaga haddana xaaladaynu sida ay ku sugan tahay kuma sugna xoolaha la badbaadiyaa dadka la badbaadiyaa meel badan laakiin nasiib darro anaga xoolaheennina waan arkaynay oo saddexda waxyaabood ee aan ku faano ee dhaqaalaheena iyo nolosheena ay ku tiirsan yihiin kuwii ugu weynaa oo dadkeena boqolkiiba inta badan ay noloshooda ku tiirsanayd waa kuwa nala tusayay meelaha ay gabranaayeen ayagoo oo abaar daraadeed ama baahi oon iyo baahi daraadeed u yaala marka waxaan rabaa mas'aladaas weyn waaye isma xukumi karaan isma ammaan geli karaan ismana qoodi karaan midda ugu horeyso isma xukumi karaan ayaa keenaysa waxaa laga hadlay asbaabta Soomaaliya hadaatay waxa la yiraahdaa cimilada adduunka isbedelkeeda wax badan kuma daro waa run marka dhinaca warshadaha iyo maxaan ku yiraahdaa fasakhaadda hawada loo yimaadaay wax badan kuma daro laakiin dhinaceena uga daraayo waan aragnay dhirta waxaan ku haynaan aragnay hab nololeedkeena qayb uu ka yahay in dhirta si xun loola dhaqmo waxaana ku soo kordhay haddana noloshiya naga gashayba si loo noolaado dadkii ayaa dhirtii hadda ka hor 2001 iyo 2002 safarro aan dalka ku bixinaynay ayaan gobolka Jubbada Dhexe yaan tagnay waxaan u tagnay laba arrimood meel waxaan u tagnay beer cambuhu dhulka inta iska daatay meeshiisa uu ku uray ninkii beertiis kala waxaan dhahnay cambaha maxaa jira maxaa u iibsan weyday suuqa ugu weyn wax la geey karo Muqdisho waaye haddaan cambe inta ka raro Muqdisho geeyo deyn al iraacanayaa u dhahay baabuurka deyn iraacanayo inta muxuu isbaara ee jidka taalo ee lacagaha lagu urursanayo hadhow lacagihii isbaarooyinkaas ku baxay iyo lacagaha cambaha uu goynayaa waxa badanaya taas markaa iska dhaafay geedo soo yaala cidii u maatay Soomaaliya guran karta ha gurato kii kalena dhulku ku daatay mucjiso ahayd wax la yaab leh waana dhowr kun oo geed oo camba ah oo meel ku taalo maalintii dambe tuuro kalaan tagnay waxaan tagnay geedii cambaha ahay oo inta la jaray is saaran ayagana waa weyn oo is saaran war waxaana waa cambe sanado badan oo ku baxay maxaa saan loo yeelayaa waxaan isbarbar dhignay qofka noloshiisa iyo geedka noloshiisa waxaan nala raqiisanaatay geedka noloshiisa inaan gooyno si qofka noloshiisa ay u badbaado waa iibsanaa waa ku noolaanaa waa cunaa marka yani duruufaha dadka groundiga dhulka degan ay wajahayaan waxaas ka mid ah
marka dadka Soomaaliyeed dhirna ma badbaadin karno sida hadda looga dhawaajinayay biyaha dhulka hoostiisa ku jiro meel dheer aan jirin oo qaarkood haddii la qodo inta soo burqadaan bannaanka u soo boodayana ma qodan karo haddii aanan dawlad rasmi ah oo dalka oo dhan hanagta oo ka shaqaysa aan la helin dawladnimadana aan dadka loo dhaweyn oo aan la gaarsiin marka taas waa intaas midda kale walaalahaygii samafalka yaqiinay iyo ganacsatada qaarkood ahaa ayaa haddaati ka dhawaajiyey gurmadka waxaan qabaa maanta waa fursad golahan aan isugu nimiday halkan inuu ka bilowdo maanta waxaan qabaa haddaati walaalkii ka dhawaajiyey dadka Soomaalida magaalada Muqdisho ee 3 milyan ah milyan waa saas haddaan dhahno milyan kale waa saas oo intaas oo boqol waa saas intaas hadday soo harto min $10 isku darto lacag badan waay anigu waxaan qabaa halkan aan ka bilowno maanta inteenaan fadhido war nin walba jeebkaaga maxaa ku jira ama EVC-gaaga maxaa ku jira hadda aan halkan ka bilowno nambaradu waa kuwaas halkaa ku dhagan aan ka bilowno halkan kelmadaha qurxan yaaran ku ekaynine nin waliba kii kaash u hayana haddaba muxuu ahay xafiiska ra'iisul wasaaraha ama hay'adihii gurmadka samafalka ka shaqaynay waa joogaane $1 ha noqoto ama 10 ha noqoto ama 100 ha noqoto aan u dhiibno kii ay EVC ugu jirto ama bangiga xisaabta ugu jirtana waa kaas electronic transfer samay kartaaye haddaba intaad samaydo muxuu ahay xisaabaadkaas midii bangigaan ay ka furan inta aan ka bilowno berrina hal la sheego hal yiraahdo shalay shirki meesha la isugu tagay warar qurxoon bas la isugu ma tagine intaana ka timid ilaahu may $1 noqotay intaana ka timid hal yiraahdo sidaas aan kalmadaha qurxan iyo niyadda san aan ficil u bedelno halkan aan ka bilowno maanta saacadan inta aan qadan la aadin aan ka bilowno kadibna anu waxaan qabaa gurmadka in la qaabeeyo u baahan yahay niyad samaan iyo kelmado qurxan oo dhahna kaliya kuma firra xukuumadda ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa waxa haddaanan tandiim ama institution aan loo samaynin ama laga adeejinin waxa waaye ma qabsoomayaan waxaan qabaa shaqaalaha dawladda ha laga bilaabo ciidamada qalabka sida lagu xijiyo ardayda iskuulaadka dhigato wasaaradda tacliinta iyo hay'adaheeda iyo waxeeda ku xijiyaano hadba intii suurtagal ah $1 $5 $1 qof waliba iyo mustawa kasta ahi inta uu bixi kara ardayda iskuulaadka haddii lala hadlo $1,000 oo xabadda sambuuska ku iibsan lahaayeen ama $2,000 in hal maalin ay bixiyaan way awoodaan haddii lagu qanciyo xooggu waa nagu dhex jiraa wuxuu yiri muxuu ahay ninkii odaga ahaa risaq reerku waa ku jiraa rag ka soo bixiyo iyo rabaa marka dhaqaale darri iyo waxaan ku gurmana ma leeyine qaabkii aan uga soo bixi lahayn aan camaliyeyno aan u bedelno hay'adaha sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha xawaaladaha bangiyada kuwa kale ganacsiga shaqaalahooda ha galaano ha weydiiyaan qof walba maxaa ilaahay hortii oo hooyada Soomaaliyeed ama muxuu ahaa cunuga yarka ee Soomaaliga ee haraadsan ee maxaan ku raraa Soomaaliya cornerka ku nool maxaa u bixin kartaa hal yiraahdo waa huba inay wax badan ay ka bixinayaan waxa soo la sugayna lacagtana loo keenayaa waa sidaas ay ku timid ogaada malaayiinta dollar ee dunida ay noo keenaysaa sidaas ay ku timid maxaa bixi kartaa maxaa ku darsan kartaa yaa naloo bixin waxaan xasuustaa abaartii maxaan ku raraa 29kii dabcan taasi maan meeday ahayd annaga sameynay roob la'aan iyo ma ay sameeyna colaadiya sameysay inteeda badan raashin la keenay wadan Yurub ku yaala laga keenay ardayda iskuulaadka dhigata ee dalkaas soo aruurisay jawaano ku xirnaa bur bac ku jira kisbariis oo bac ku jirta baakad buskid ah intaas yaani uu ka koobna arday walba gurigaaga maxaa ka keeni kartaa inta la yiri la keenay raashinkii maraakiib oo markaba uu noqday markaba inta lagu soo raraa halkan la keenay war waa yeeli karnaay wasiirkeena tacliinta waa nala joogay boqolaalka kuna ardada ah hal maalin koobka shayga ku gashinay ku cabayaan aan weydiisan wasaaradii oo dhan waa nala joogaanay war dadkeena wasaaradaha ka shaqeey intaan u yeerna shaqaalaha aan wax weydiisan
oo kuwa bangiyadayna ka shaqeeya aan weydiisanno oo kuwa isgaarsiinta meel walba u jooga aan weydiisanno dadkeenna aan ka doonno kaalmada aan u rabno maxaan ku yidhahdaa dadkeenna 45 milyan muxuu ahay wasiir beyle hadda uu noo sheegay waan naqaanaa kaalmada caalamigaa siday u baxdo lacagaha badan ee caalamka ku dhawaaqo gabadha haraadsan islaanta cunuga yarkaa ee muxuu ahay caanaha ula ama muxuu ahay reerka maxaan ku yidhahdaa meel hebel ku haraadsan inta gaari karto percentage-ka ay ka noqonayso waan ognahay laanna overhead costiga ayaa muxuu ahay dhibaato badan laakiin annaga naguma aha halkaana baabuur inta biyo looga qaado waa joogaan culimmada qaarkood iyo ganacsatada qaarkood muqdishoa inta biyo baabuur looga qaadaa gada lagu geyn jiray raashina halkan inta laga qaada qaarkiisa ayaa la geyn jiray meelaha ugu fogfog soomaaliya waan geyn karnaa markaan annaga geynayno cost kuma geynee ninka kaalmadaa geynaya asigaa isdabara ee lacagtii loo ururiyo dadka iskama dabaro baabuurna kama raaco shidaalna ugama shubto ee marka la yidhaahdo anaa gaarsiinayo 1,000 kilomitr meel jirta ama 700 500 kilomitr dad degan asaa isdabara qofka soomaaliga ah laakiin wixii yaraaye la soo aruuriyey iskama dabaro waa sababta ay kaalmadeennu ay uga tayo badan tahay ama uga xoog badnaanaysa midda caalamka waxaan rabnaa aan soo jeedinayaa waayo aragnimaduna tusayso oo shalay iyo daraad iyo tii hore aan soo joogno midda weyn ee inaan isxukunno iyo inaan isdaaweyno iyo meesheeda hataa le'e hadda middan gurmadka ee degdega ee nafku celinta ah aniga waxaan qabaa saaha loo yeelo ra-iisul wasaare adigoo mahadsan hawshaan in loo istaagan qabaa oo wasiirada golaha wasiirada wasiir kasta ahi waxa uu ku soo biiriyey meeshaan in la weydiiyo wax uu jeebkiisa ka keenayana ma ahane shaqo uu qabanayo waaye wasaaraddiisa iyo shaqaalihiisa inuu guddi inta ka dhex magacaabo maalin walba la kulmo ee yidhaahdo war maanta maxaa noo soo biiray maxaa noogu soo zaa'iday intii shalay maalin walba uu yidhaahdo shaqo waaye waa shaqo badbaadin ah sida la sheegay anigu muxuu ahay intaasaan soo jeedi lahaa abaaruhu dynamicska waa beddelaan barakaca hadda la sheegaya abuuraan dadku markay barakacaan ma dhacdo 100% haddii dhulku uu samaado xataa in dadku inay meeshooda u noqdaan ma dhacayso dadku inta barakaceen waa kuwa ilaa north america iyo yurub iyo australia jira waaye barakacaa keena haddaanay barakaci lahayn meelahoodii ay deganaa lahayn joogi lahaayeen ma jiri lahayn muxuu ahay dhulalkaas fogfog soomaaliya dhexdeedana waa sidaa marka waxaan qabaa wax weyn aan qaban karnaaye aan u istaagno muxuu ahay oo aan camaliyeyno u istaagiddeedana adiga hebelow qofna waxba lagu khasbi maayo qofna waxba lagu xukmi maayo qalbigiisa iyo maxaan ku idhaahdaa ilaahay hortiis waxa ula baxayo inaad u adeegtid adiga inaad ka adeegtid waayo muhiim waxaan qabaa marka aan sidaa yeelno wax badanaa noo soo baxaya maalmaha soo socda xarunta dadka guddiga gurmadka ee la magacaabay iyo xaruntooda iyo meesha ay joogaan iyo inay idaacadaha fariistaan 2003 mida eed maba xasuusta mar sidaanoo kale abaar ay dhaceen hal habeenaan xasuustaa oo aan idaacaddii hoon afriig la dhihi jira aan fariisannay raggii cabdulaahi shirwac aan ka xasuustaa allah u naxariistay sheekh nuur baaruud ayaa ka mid ahaa akhyaar badanaa fadhiday oo aan dadka idaacaddaas kala hadlay telefishin birigaas weyn oo telefishinada maanta noo jiraya ma jirin internetka iyo maxaan ku idhaahdaa waxa maanta jiray iyo whatsappka iyo groupskan iyo zoomkan iyo waxaan lagu waxaysmaya ma jirin halkaa habeen lacagtii aan aruurinay dadka qaarkii caruur gabdho yaryar ayaa dahabkooda bixiyey oo maxaan ku idhaahdaa qof walba waalidkii aabbihii ku dhegay aabba maxaan ku darsaa isii lacag isii $10 isii $100 isii oo caalamka meel kasta joogo marka hawsha haddii loo istaago howlay noqonaysaa aan qaabayno xukuumadda iyo golaheeda wasiirada ha noo bilaabeen ganacsatadeenna ma aha bangi hebel intaanuu bixiyo ma aha bangi hebel wixii uu bixi kara ka bangi ahaan institution ahaan ha bixiyo laakiin shaqaalihiisuna waxbay bixi karaan kambani hebel intaanuu bixiyey waa wax weyn laakiin shaqaalihiisuna intaa in u dhiganta ama marka qaarkoodba ka badnaan karta ayay bixi karaan siday u kala shaqaalo badan yihiin iyadoo aanan muxuu ahay waa lagaa goynaya waa lagugu khasbaya aanan ahayn marka waxaan qabaa
aan qaabayno xooggu waa nugu jiraa dhaqaaluhu waa nugu jiraan inaan qaabayno oo aan dhisno oo aan institutionalize garayno tandiim u samayno waxa naga dhiman waana gaari karnaan qabaa mar kale waxaan u mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha fursaddan na siiyey iyo intii soo xaadirtayba aad iyo aad u mahadsantihiin